Assalaamu calaykum. Waa anigoo Yumaan ku soo dhawaaw muuqaal cusub. Dhageystow haddii ay tahay markii ugu horeysay ee channel-kan aad soo booqato, calaamada gaduudan ee subscribe-ka taabo, gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro fiidiyoo kasta oo aan soo gelino channel-keena. Waxaa kala socotaa saxiixa Paul Pogba, Vinicius Jr. iyo Kylian Mbappe, Mario Mandzukic iyo Chelsea oo ku dhow inay la wareegto xiddiga Real Madrid ee Isco iyo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga. Paul Pogba ayaa fashil ku imaaday bixitaankii uu ugu socday Real Madrid inuu u ciyaaro, waxaana la sheegayaa in uu sii joogi doono kooxda Manchester United. Waxaa caddeeyay arrintaas Zinedine Zidane oo sheegay in bisha Janaayo uu wax ciyaaryahan soo iibsan ilaa iyo uu iska iibiyo ciyaaryahan kooxdiisa ka mid ah. Geesta kale, ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa la sheegayaa in uu ku biirayo kooxda Liverpool, laakiin tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa hoos u dhigay wararka kooxdiisa inuu ku soo biirayo ciyaaryahan Kylian Mbappe. Laakiin tababare Jurgen Klopp ayaa sheegay in uu jecel yahay ciyaaryahan Kylian Mbappe, waxaa soo warisay jasiiradda Mirror. Dhinaca kale, weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Mario Mandzukic ayaa la sheegayaa inuu tijaabada caafimaadka u marayo kooxda kubadda cagta Al Duhail ee ka dhisan dalka Qatar. Waxa uu sheegay ciyaaryahan Mario Mandzukic inuu iska diiday ku biiritaanka kooxda Manchester United inta uusan ku biirin kooxda Al Duhail ee dalka Qatar, waxaa wariyay wargeyska Sky Italia. Geesta kale, kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa hoggaanka u haysa xiddigaha weerarka uga dheela kooxda Real Madrid ee lagu magacaabo Vinicius Jr. iyo ciyaaryahan Isco. Real Madrid ayaa mar hore u soo bandhigtay kooxda Chelsea iibsashada labadan ciyaaryahan. Real Madrid ayaa daneyneysa inay qaadato ciyaaryahan Paul Pogba si ay iskaga iibiso xiddigaha Vinicius Jr. iyo ciyaaryahan Isco. Dhinaca kale, tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee lagu magacaabo Pep Guardiola ayaa sheegay inuu cabsi ka qabo xiddigihiisa qaar ka mid ah inay daba-raacaan kaaliyihiisii hore Mikel Arteta oo maalmo ka hor ka dhaqaaqay kooxda Manchester City, haddana ka ah gegada caanka ah Emirates ee leedahay kooxda Arsenal. Fiidiyoogii aan suuqa kala iibsiga uga hadlaynay maanta halkaa ayuu ku eg yahay. Waa anigoo Yumaan, nabadiino kulanti dambo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.